السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rabaa in aad la qaybsado biriga sadaqa jaariye ah. Sadaqadaas jaariye ah waxaan rabaa sida uu Nabi Maxamed noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wama yantiqu anil hawa. qofku marka uu dhinto wax kasto camalkiisa dhan waa u go'aa ilaa saddex ma ahane. Saddexda waxaa kamid ah sadaqa jaariye ah oo ceel aad meel ka qoday masalan guri aad ummadda u waqaftay musxafyo kitaabo quraan aad meel masaajidka geysato la akhristo iyo wixii lamid ah. muga waxaan rabaa biriga insha allahu tacaala sadaqadan jaariyada ah aan rabaa inaan la qaybsado biriga aan rajeynayo insha allahu tacaala haddii aan ifka ka tago aan dhinto aan ilaahay la kulmo inay miisaanka qiyaamaha daraf iiga buuxiso waa sidan. waxaan ognahay qofka muga hurdada ka kaco waagu baryo inta ugu badan waxaan raadinaa shaah ama qaxwo, halka dadka qaarna ay sagaar ka bilaabaan walciyaadu billah. waxaan rabaa beriga kuwa sagaarka cabatoas ayagu mar kalaan ka hadli doonaa. waxaan rabaa qofka qaxwada ku bilowdo ama shaaha ku bilowdo in aan wax uga bedelan taas beriga aan idin soo bandhigo insha allahu tacaala kana faa'iidaysatiin. waxaa sameynaya haddii allah awoodda la ogolaado aad hurdada ka kacdo, dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan hurdada kasoo kicinba. allah yatawafal anfusa xiina mawtiha, waayo dadku markay ay hurdaan naftu way baxdaa, ma dhintaan, ma meel kale la geeyaa, alcilmu cinda allah. dadka qaar ayaan soo naqan, laakiin haddii ilaahi subxaana watacaala uu caafimaad kuugu waabariyo uu naftaadi kuu soo celsho waa inaad tira alxamdu lilah. tusaale ahaan markii ratigu kaa dhumo reebaadiyaha yaqaano aad muddo raadiso aada weyso aada hesho kabacdi maxaad dhehe alxamdulilah ratigayga waa helay. muga naftan way kaa tagtay 8 saacadood 10 saacadood 11 saacadood ayaa jiiftay, mintee la geeyey, ma la qaaday, ma dhimatay, qof kale maa la siiyey, ma laga soo celshay, alcilmu cinda allah. muga walaalayaal mugaad hurdada ka kacdo aad ilaahi subxaana watacaala aad ku mahadiso aad rumaysato aad xaajada kale soo gudato, kow waxaa sameynaya si idiin muuqato sanjabiil ayaa soo qaadanee sanjabiilka jaqafkaas idiin muuqda ayaad ku xoge liin xabad liin haddii aad heli karto waa jarjare, haddaad ku xogi kartana waa ku xoge. dabka ayaad la saare jalamada amba gasaci mugaas uun ku yaalo biyo dabka la saare waa karkarihe. mugay kululaadaan ay soo gadoomaan ayaad ka qaadee koobaad ku shubahe sidii shaah camalaa u cabi. haddaad hal koob ka cabto, haddaad laba ka cabto, intaad adigu awoodo hal kooba ugu yar wixii ka badi karta adiga. sidoo kale biyaha ayagoo caadi ah haddii aad kululeysato dadka qaar waxaa laga yaabaa inay waayaan sanjabiilka amba liintoo kale. aniga hadda liinta marmar ma helo, waayo hadda sicir barar ayaa dhacay, maciishada qaalooda ayay kamid tahay liinta laftarkeeda iyo sanjabiilkaba xataa. laakiin haddii qofka waayo, haddii aad liin weyso dhima lahan, sanjabiilkaa jajafane dabkaa saarehe muguu soo gadoomo waagu muguu baryo habeenka mugaa seexana. sidoo kale hadda aad samay karto 2 koob habeenkii aad mugaa seexanayso oo waxaaga dhan noloshada dhan dhamaysato oo aad jiifka aado oo aayatu kursiga iyo qur-aanka akhrinayso ka hor ah ayaad koobkaas cabay haddii aad awoodo. haddii aadan awoodinna subaxdii aad inta badan ka dhiga, waayo subaxdii ugu muhiimsan, waayo jirkan habeenka oo dhan waa shaqeyhaa. waxaan rabaa marka qarastaadii oo taagan haddaad shaah iyo sokor ka horgeyso wuxuu sii bararayaan. muga waxaa fiican intaadan wax kala sameyn inaad koobkaas biyaa oo la kululeeyo sanjabiilka iyo haddii alla idinkeeda leeyahay aad ku dartay liinta inaad qac ka siiso. haddaad cabto koobkaas kadib wixii rabtood quraac kaloo ku darso, waxa rabto kale iska cun adiga dhima lahan, wuxuu kaa saacidaa caafimaadkaaga. sidoo kale haddii aadan awoodin biyaha caadiga ah liin ku dhigso caadi u cab. haddii aadan awoodin biyaha caadiga ah oon liin la-aan ah oo sanjabiil la-aan ah ina ku shubatid koobka. haddii aad kululay karto wax yar ood ka qaadi karto dhaxanta waa okay. haddii aadan awoodin intaadan cabin ka hor 10 daqiiqo ka hor ku shubo koobka meel gooniya dhigo. 10 daqiiqo markay kasoo wareegato dhaxanta way ka haadee markaas inaad kululeysid. meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay kululeys kaba waayaan, ma dhib ma lahan amba waqti aa u weyso habeenkii oo kale amba subaxdii mugaa hurdada kasoo kacdid
caag hadaa ku shubatid xataa okay wa ani baabuurka uu ii saaran yahay caaggaas oo kale 2 caag oo baabuurka ii saaran muga biyaha wax kasta waxay u yihiin caafimaad ilaahayna wuxuu leeyahay wajacalnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yuuminuun biyaha noolaha biniaadinka sidoo kale inaad iska badisana ma fiicno laakiin biyaha waxa ugu fiican ee aad maalinta cabi karto waa inay ahaadaan 5 liitar ugu yaraan 5 liitar ugu badnaan inta adiga awoodid 5 liitar waagu ma goobariyo koobkan oo sanjibiilka aad ku cabayso haddii laga reebo 5 liitar oo kale oo biyo caadi ah waagu ma goobariyo ilaa oo habeenka aad seexanayso inta ka dhaxla waxaa rabaa inaad cabto 5 liitar hada billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته